These streets remind me of quicksand. When you're on it, you'll keep going down. السياسة فورك مدحونها ودن كإريتريا يا سوين وجوسو دويي قرون كعالمي ديارها مجالة أسمر مدحونها جمهورية الفدرال كصوماليا مدن محمد عبد الله فرماجي وفدو هجامين أيوه وبقشدي وجوه الرئيسي وصدح معنا يقبل لعبنا يسوع ودن كإريتريا عتوبيك ترسن عيدا كودن كان وطميا أسانت جمهورية الصومالية أي سلام شرف كقاطع مدحونا فرماجو بقشة مدحونا فرماجو أي سوين لو قدر يومي مقالة أسمرة يدو وضد اسكو حرتا مدحتو يدا يقرون كعالمي مقالة أسمرة أي صوب بحدافين دادوين آد أفر بدن كواس oo luxaya calaamada labada dal qaarkood ayaa ku qeylinayay soo dhawow madaxweyne farmaajo sidoo kale wadooyinka ayaa waxa ka muuqatay hal ku dhigyo muujinaya saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Eritrea ha jirto sidoo kale dadka ayaa aad wajigooda looga dareemayay inay aad ugu faraxsan yihiin cilaaqaadka iyo xiriirka dhexmaraya labadan dawladood labada madaxweyne ayaa halkan oo xaruntii madaxtooyada wadanka Eritrea ay ku yeeshaan kulan rasmi ah kaas ay uga hadlayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dawladood labada madaxweyne way fariistaan waxay ka wada hadleen qadiyadaha Soomaaliya iyo Eritrea khuseeya qadiyadahaas waxa laf dhabar u ahaa in la soo hadal qaado xiriirka labada shacbi ka dhaxeeya labada shacbi xiriirka ka dhaxeeya waxa ahaa mid isdhexqaada iskaashi ah deegaan wadaag ah halgan wadaag ah waxaa laga hadlay way aragnimadii labada dal ay lahaayeen ee xagga xilliga isticmaalka iskaashiga ka dambeeyay kaalintii ay lahaayeen Soomaaliya ku lahayd dalka gobonimadiisa iyo kaalintii Eritrea xiliyadii adkaa ee Soomaaliya soo maray wada hadaladii wali waa ay sii dhiman yihiin laakiin waxaa aad iyo aad loogu nuxnuxsaday ilaalinta karaamada shacabka labada shacbi labada dawladood in la ilaaliyo karaamadooda in muwaaqifta taariikhiga ee geesinimada ah ee labada dal ay ka qaataan qadiyadaha dawliga iyo heer gobolba la xoojiyo marka laga hadlo xiriirka caalamiga ah dawladda federaalka ee Soomaaliya sanad iyo barkii tagay waxa ay ku sameysay isbedel weyn taas oo u horseeday in Soomaaliya ay kaalin firfircoon hadda ka ciyaarayso arrimaha gobolka iyo guud ahaanba kuwa caalamka Ali Baashi Cabdullaahi These streets remind me of quicksand. When you're on it